waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a-da dhegaystayaal taariikh bulshadeedda soomaalida dadka daneeya siday ka warqabaan dhowaan ka hor waxay farduhu meel weyn kaga jireen nolosha soomaalidii reer guuraaga ahayd sanka baxdow ah ama geeyo cagale ninkii aan lahayni ragga kuma tirsanayn su-aasha kolka meeshan ku jirta oo malahayga ay dhalinyaradu jawaabta uga baahan tahay waxay tahay meekhaankaa sare maxaa fardaha gaarsiiyeyoo ay ku mutaysteen runtii jawaabta su-aasha waxaa si fudud loo garan karaa markii la ogaado hawlihii kala duwanaa ee waayadaas ay bulshada ugu filaayeen kuwaasoo dhowr ahaa hase ahaatee dhaca geela iyo dhacsigiisu ay ugu weynaayeen waxay ahayd bulsho nolosheedu aad u adag tahay oo reer kastaaba uu ku qasbanaa jiritaankiisa inuu si walba ugu hawshoodo uguna halgamo markaas baa isu duulidda iyo isweerarka tolalku ay joogto noqdeen ceebna ma ahayn in qolaba qolada ka taag daran ay col ku dhardhaarto oo dhammaan wixii xeryaha xoole ugu jiray ay goor barqa ah kala meerto waxaase ceeb ahayd in geel la-aan la iska noolaado dabadeedna cad iyo caana lagu diimee in cidda haysata laga soo mooro duugaa bulshadaas ceeb lama ahayn dhabtiina dhaca xoolaha iyo duulaamadii lagu kala qaadi jiray wixii suuro gelinaya waxay ahaayeen fardihii fudfudoodaa ee dheereeyey awooddana u lahaa in habeen qura gudihii ay meelo fogfog isaga tallaabaan kumaankun faras oo aan kala dhicin ayaa jeer aan fogeyn geyiga soomaalida kob walba lagu haystay odayadii xilliyadaas ee aan soo gaarnay siday noogu warrameenna waxaa loogu jeclaa nugaal iyo ximan fardihii ka dhalan jiray hebel waliba wuxuu ku taami jiray inuu yeesho faras fardaha kala bada dheereeyey oo sangihii iyo geenyadii iska dhalay inta loo abtiriyey la garanayo lana shirrabay sidaa daraaddeed baa waxaa kolba soo ifbixi jiray neef xulad ah oo xawaare iyo xawliba lagu kuunyo la isu wada sheego kolkolna nin kale inta lagu damaaciyo uu naftiisa ku waayo aan haddaba barnaamijkan iyo kuwa xiga si kooban ugu soo qaado qaar ka mid a taariikhda fardaha magacoodu dheeraaday aniga oo ku bilaabaya askir heelli baxdowgii la baxay ee dagaalyahankii dambaabi jiray ay dad isku sheegeen farduhuse dagaal oo qura kuma qaybsanayn waxay geli jireen yaradka magtana waa lagu dari jiray ina hebel intaas oo geela iyo intaa oo farda ah ayaa laga bixiyey waxay ahayd dheeraad gabadha iyo reerka dhalayba ay ku faanaan marar baase waxaa dhici jirtay in nin gabar doono in geel fara badan iyo fardaba uu ka bixiyo dabadeedna uu aabbaheed ku yidhaahdo faraskaaga hebel ah ama geeyadaada hebla ah haddii aadan yaradka ku soo darin gabadh aan kuu dhiso ha iga filin dhacdadaas oo kale waxay la soo gudboonaatay gabyaa raggii hore ka mid ahaayo cabdi muuse cali la odhan jiray gabadh buu doonay saa waa la siiyey kadib markuu yarad uga keenay geel iyo fardo tiradooda iyo tayadoodaba aan la qawadi karin hase ahaatee cabdi muuse gabadhii kuma guulaysan waa loo diiday sababta hadduu toyana waxaa loo sheegay inaanu reerka gabadh kala tegi doonin haddii askir heelli faraskiisa la yidhaahdo aanu soo raacin xoolihii uu horey u bixiyey cabdi muuse farasku aad buu ugu dheeraaye dhulkaa la wareegay show xoolihii uu bixiyey oo idin isaga ayuuba ka jeclaa markaas buu tallamay markaa buu isla hadlay gabadha iyo faraska
ayuu meel maskaxdiisa ka mida intuu soo wada joojiyey isgarab dhigay. sidee buu askirheeli ku bixiyaa? sawgeela u xeraysan iyo fardaha u qoofanani markoodii horeba isaga dartii kuma ay iman. ma hadduusan askirheeli haysan buu rag duulay inta raaco haleele iyo horweyn miiran ka saami qaadan lahaa? maya maya ayuu isugu jawaabay, isaga oo madaxa kolba dhan u ruxaaya. wuxuu dhulka jifeeyeba ugu dambaystii waxaa ka go'day in gabadha uu huro intuu askirheeli huri lahaa. beri ka maalinna farda reero kale leeyihiin xeradooda wuu uga dhex muuqan lahaa. maalintaas buu tiriyey geeraarkii uu faraskaa ku diiday, gabadha reeroodna uu kaga maarmay. wuxuu yidhi, gabarh heense wanaagsan iyo quruxda isku hagaajay hanti eebba u siiyeyoo aqal weyn harsanayso oo hodan aabba tiraahda haddii haatan la keeno huri waaye duqayga. wiilal hayid u duulay inaan hoosada jiifoon u habeenna tirsaa waa halaanan jeclaynoo huri waaye duqayga. haddaahay cali muusiyo rag kaloo aan hubaaba geela hawd iyo doolliyo laan hadeedi ka foofay hadalkiisa hayaanoo huri waayey duqayga. wuxuu ku soo gebagabeeyey, askirheeli haddaan bixiyo muslimnimo isdaynay, habaarka tolka dusha u ritay, jidkii nebi ka leexday, wiilashii dhaqaalihiisa iyo kuduulkiisa yiqiinna tashi iyo himilo wixii ay lahaayeen alla ilaahay ku baajiyey. wuxuu yidhi, haddaanse askirheeli hooyay cid idhaahdo muslim haybtii ma sheegto, tol habaarkiina qaaday, nebigiina haleeye, wiilashiiyo hojintiisiyo haysadkiisa yiqiinna arrinkoodii haboosha. cabdi muuse dhaartii wuu ka dhabeeyey, siday sheekadu igu soo gaadhayna isaga iyo gabadhii way isa sheegeen. askirheeli ayayna dhegaystayaal, toddobaadkii hore waataan iskiin baray faraskii askirheeli la baxay iyo cabdi muuse cali, dagaalyahankii fuuli jiray ee gabadhii quruxda badnayd ee uu guursan lahaa ay daraaddiis isku seegeen kadib markii la weydiistay in faraskaas uu yaradka ku soo daro. maantana waa faras iyo dagaalyahan kale iyo sheeko aan taa waxba quman ka duwanayn. waa xamarsalow farasku, ninkuna waa xirsi dhudi goobaale oo lahaan jiray. siday wariyeen wuxuu ahaa faras xoog iyo quruxba isku darsaday, xirsina uu lahaanshihiisa liibaan ka sheegin jiray. waa ku duuli jiray, gaadiid waa u ahaayoo haddiiba meeshii uu rabo ayuu ku tegi jiray. waa ku taxaashi jiray, geedka shirka ee raggu ku ballamana isaga oo shaqlan oo shaaximan ayuu ku gaari jiray. wuxuu rumaysnaa dhabna ahayd geela iyo fardaha uu haysto haddii aanu isaga haysan inaanu haysteen. la-aantiis wuxuunbuu ahaan lahaa cayr fara madow oo reeraha dhexdooda aan laga tixgelin loona soo joogsan. hadalka oo kooban, wuxuu xamarsada u ahaa faras uu ku dhaarto kuna dhaato. bulshadii uu ku dhex noolaana waxay ku xaman jirtay gabannada uu dhalay iyo isaga haddii la kala dooransiiyo in isaga uu door bidi lahaa, waase jacaylkii uu neefka u hayay. xirsi dhuwi isaga oo 3 haweenihii ay u dhaxaan ayuu ku tashaday inuu afreeyo, sidaasna uu ku gaaro soohodinta ay diintu u ogashahay. maraha xilliyo aaran ah ayaa isugu xigay inan dhaban iyo dhabeelnimo loogu sheegay ayuu aabbaheed iyo adeeradeed ka doonay. iyagiina way siiyeen, wayna ku meheriyeen kadib markuu soo tubay geelii iyo fardihii yaradka ahaa ee ay hore ugu heshiiyeen.
hase ahaatee iyada oo gabadhii aan weli loo rarin asi loo ballansan yahay ayaa maalintii dambe waxaa u yimid seedigiis oo dhul fog uga soo sodcaalay. habeen ama laba kolkuu reerkii la hoyday lana sooriyeeyey ayay xirsi iswaraysteen, dabadeedna muraadkii uu u socday ayuu wax uga siiyey. wax kalena ma ahayn, wuxuu ka soo doontay xamar sarow, faraskii uu ku dhaaran jiray ee siday la ahayd noloshiisa kabarka ahaa. maalmahaasna wuxuu xirsi ku howlanaa cod uu humaayey, uuna rabay inuu ku saaro gul labaad nimankii oo aabihiis gacantooda ku baxay, sidaasna godobta uga hayay. xirsi waxaa la soo gudboonaatay arrin aada u culus. laba daran mid dooro ninba maalin bay haysataay, maanta isaga ayay jilbaha soo dhigtay. farasku waa ku dheeryahayo inuu gacan cid kala garaa geeri ugama duwanayn. dhaqan ahaanna sodon, seedi iyo sodo in wax loo diido hungana lagu diraa ceeb iyo facshar bay ahayd. muxuu haddaba yeelaa? ma faraska ayuu inta ku masuugo dhabarka ceeb u ritaa, dhaliisha iyo xanta dadkana u bareera? mase wuu bixiyaayo sidaas buu godobtiisa maqan kaga haraa? ma maatada ayuu aryaha la raacaa? ma sidaas buu caysnimana ugu tooghayaa? kollay isaga la-aantii waa isku dhan yihiin. wuxuu wax maamiyaba ugu dambaystii waxay tala kaga ibabeesh. ceebi waa laba afmaroojise, xamar sarow inuusan bixine uu ku fara adaygo, wixii la doono ha laga sheegee. maalintii dambe waa beri goor ay tahay, xoolihii reerkuna ay dareereen, ayuu xirsi seedigii ugu tegey golihii loo asteeyey ee jawaabta codsigiisii uu ku sugayey. markaas buu raarkii uu ku fadhiyey inta kula fadhiistay ku yidhi, seedow, waan ogahay oo waa silic iyo saxriir, xididka oo la lugooyo, xididka oo aan si fiican wax loo siin amaba loogu dayrin. intaas markuu ku arartay ayuu runi ra kala nixisee iyadii oo qayraxan dhagaha ugu shubay. wuxuu yidhi, maxaad iga soo doontay? sangayaashaydii wada baxdowga ahaa sow anigii idiin huray? saahood ma ilowday? sow ma garanaysid xamarkii kale ee goor barqa'a aan gacmihiina ku hubsaday? intaas iyo ka badanba sowtaan idin guddoonsiiyey. isma aan lahayn waxbaa isugu keen harae, maxaad seedow iigu soo sodcaasho? oo wax la isweydiistaa badane, yaa baasoo xamar sarow kaaga warramay? yaa afka kuugu tiray? waa garnaqsi culus, calaacalna aanu ka maqnayn. hase ahaatee erayadaasi seedigiis ma ay solin, mana quusin. halkiisii markuu ka dhaqaaqi waayeen waxaa xirsi ka dhaadhacday, waxaanay wax ka badane in reerku ku soo tashaday gabadha inay kala noqdaan, haddii neefka oo heensaysan aan ninka soo doontay beri foog la guddoonsiin. waa marka uu isleeyahay, alla ilahay tiraabkii waxba lilayn waaye, xagga maansada ula bayro, ninka faraska doonaya si cad ugu sheeg inaanu meesha ka raaci doonine uu ka jiciirto. waa maalinta uu tirinayo gabaygii uu ku quusiyey, gabaygii uu ku xoosiyey xelo dalaaqa saddexdii dumarka ahaa ee u dhaxay, isaga oo leh, haddaan faraska bixiyo dumarkaygu iga wada furane, ninkii doonow guurso. meedisyadii tirada yaraa ee gabaygaa naga soo gaaray ayaa waxay ahaayeen: saxariir ma huro, seediyow xidid la soocshaay, saahoodba waataan baxshay, iyo soohanow xamare, saakana maxaad iigu timi? surinku waa kii ma samrine, anoon reer siyaadsayma kaga quusan, saddexduba rag wa u siman yihiin, salow haddaan dhiibo ma harin hadal la is yidhaahdaa. cabdi muuse cali oo toddobaadkii hore aan sheekadiisa idin mariyey iyo xirsi dhugi goobaadaba waxay u taagan yihiin soomaalidii ay la xilliga ahaayeen ee sida xaddhaafka ah fardaha u jeclayd. gabyaagii abwaankana ahaa ee la ohan jiray cabdilaahi muuse waa xilligii uu ka sheekeeyey markuu lahaa,
laba awowgay baa soo gaaray, labana aabbahay baa soo gaaray, labana anigaa soo gaaray. awowgay wuxuu soo gaaray xoolaha oo fardaha loogu jecel yahay iyo guurka oo gabadha reerkoodu xoogga leeyahay loogu jecel yahay. aabbahayna wuxuu soo gaaray xoolaha oo geela loogu jecel yahay iyo guurka oo gabadha quruxda badan loogu jecel yahay. aniguna waxaan soo gaaray xoolaha oo idaha loogu jecel yahay iyo guurka oo gabadha reerkoodu hodanka yahay. dhegaystayaal, faarax xasan cali oo faarax afcal lagu naanaysi jiray wuxuu ahaa gabyaha horraanta qarnigii 19aad dhab loo tixgelin jiray. maantana dadka murtida maansada dhuuxa amaba la faguraa maansayahanada raca hore ayay ku tiriyaan. wuxuu ahaa ninkii maansada soomaalida ku soo kordhiyey ujeeddo aan isaga ka hor la aqoon. waa ujeeddada gadaalkii nafti hafarka loo bixiyey ee gabyaagu uu ku tilmaamo dagaal aan dhicin asii uu filaayo inuu dhici doono, isaguna uu ammaanduulo ka yahayo qaybta ugu weyn uu ka qaadan doono. gabayga ka sokow wuxuu ahaa dagaalyahan had iyo goor weerar iyo gabagaba u taagano inuu meel fadhiisto aan lagu karin. ninkaas oo kalena waxaa waayihiisii lagama maarmaan ahayd inuu yeesho faras la yaab leh oo dhankii laga eegaba ku wanaagsan. afcal wuxuu lahaan jiray faras wacdara qaba, baxdow cagal looga haray, hase ahaatee sidii noolo kasta u dambaysa waagii dambe ayuu ka baktiyey. dabadeed sid iyo saaq si uu ku helaba waxaa ka go'day in gacantiisa uu soo geliyo midkiisii oo kale ah amaba ka wacan, una suuragelin kara danihii inuu ku qabsado uu markaas haabka ku hayay. maalintii dambe ayay nugaari maskaxdiisa ku soo dhacdo, dabadeedna ma labalabayne waxay tala kaga go'day inuu u sodcaalo niman geyigaa ku dhaqan jirayoo xagga hooyo ay walaalo ka ahaayeen asii aysan weligood is arag. maalintaas buu nugaal afka saaray si uu uga soo helo faras isaga oo kale ximan iyo dhulka u ogogole toona aan lagu ogeyn. isaga oo geyigaa jooga oo walaalihiis marti u ah ayaa waxaa dhacday in degmooyinkii halkaa yiille ay shir weyn isugu yimaadeen. raggii geedka fadhiyeyna waxaa ka mid ahaa garaadkii tolka oo la oran jiray garaad maxamuud iyo ilmo dalmar, cali iyo jaamac oo gabyaaga walaalihiis ahaa. afcal inkastoo markaas ka hor aanu nugaal tegin, haddana wuxuu ahaa nin magaciisu ximan iyo galguduudba gudubsanaa oo xilligaas dhulka soomaalida badankii laga yaqiin. wuxuu dareemay xamxam iyo in la isweydiinayo waxa uu nugaal ka soo doonay. markaas buu inta fadhiga ka kacday halkii ka mariyey gabay uu shirka ugu sheegayo danta nugaal keentay iyo waxa ku xambaaray in dhulka intaa la eg uu isaga sodcaalo. hor iyo abbaataba wuxuu ararta ku caddaynayaa geel, lo iyo xoolo kale toona inaanu doonayn ee uu rabo oo keliya faras farda ka baxay. tilmaamihiisa oo faahfaahsanna tuducyada dambe ee gabayga uu ku tixi doono. garaadkii intuu ku halqabsaday ayuu sidan u arartay: garaadow, bil laba kawsataan bay ka soo baxay, boqonkaygu waa soo rognaatan iyo baarguune, dhulku wuxuu ballaaraa fariyo baabacaan dhigaye waxba baatil geel, lo iyo baarqab haysiine baasaarlamood cawgarool yaan u baahnahay. bal haddana ila dhuux tilmaamaha wan wanaagsan ee uu jecel yahay in laga helo neefka uu nugaal kala laaban doono. sida gorayga ha u midaba badnaado, sida haadda baalal ha u lahaado, diilimo bay ah bowdada ha ku lahaado, ha noqdo mid goortuu waaye joogaba isdharan roga oo midab iyo gada cusub la soo baxa, sida xaashida iyo baftadana ha u caddaado. wuxuu yidhi barqamaalka xoolaha haddii bawdka la-a keeno neefkii bagaasiya, ishaa laga basaasaaye bariimaha haldhaa uga ekow baalal ha lahaado, barta cadowga bowdada tafaha bey ha ku lahaado,
bafta iyo sidii xaashiyeed boor ha ka caddaado ha bidhaamo bayrow sidii maro la boodeeyey goortii gugiisii bartamo ha isbaxaadoosho sidii baarqabada maalinguur buur ha la ekaado sida naagihii baararsame ha u boglaalaado. intaa hadduu yidhi ayuu raaciyey tilmaamo kale oo iyaguna lagaba maarmaan u ah faraska uu la tegi doono. wuxuu leeyahay kolkii aan dushiisa tago ha ahaado mid durbadiiba ila booda sida aad libaax oo waxdirid maagan. hadday dhacdo in godad hoos u dhaadheer iyo boholo ii dhuuntay uu igula dhacana ha ahaado mid sida bownaha fudud oo markiiba inta ka booda geesta kale ku dhaca si fiicanna uga baxa halka ay fardaha kale habsadaan. birta laga rakaabsado hadday bidixdu miisaanto baashaali maayee haddaan barow ilaa fuulmo aan labada baabaca ku dhigo luqunta baaceeda sida bahalka aaroo wax dili booda ha lahaado booraan hadduu igula dhaco boholo saysaaban meeshii barkood jiifi jiray bownaha ahaada. gabaygaas kolkuu dhammeeyey ayaa raggii jidka fadhiyey nin kamidihii inta kacay wuxuu yidhi wallaahi ee faraskan uu tilmaamayaa waa xamar cilaankii hebel maxaa yeelay isaga mooye neef kale oo tilmaamahaas lihi reeraheenna oo idil uma soo hoydo. markaas bay walaalkiis cali darmartada ku caddaatay. wuu murugooday maxaa yeelay neefka uu afca tilmaantay xerada fardihiisa kuma jiro, isagana loogama yaabo inuu qaato mid aan lahayn astaamihii tirada badnaa ee uu gabaygiisa ku taxay. ugu dambaystii sidii geedka sidka looga dhawaaqay ayaa rumowday markii la hubsaday neefka tilmaamahaas lihi inuu yahay xamar cilaan oo keliya. oo waa yahay xamar cilaan cali darmar ma lehee sidee buu afcad ku taabi karaa? in la soo iibsado ayay jawaabi noqotay. oo ninka lihi inuu ka wareego ma ogolaan doonaa. wax arrinta la gorfeeyaba cali dalmar ninkii faraska lahaa ayuu ugu ergooday kana duraantay inuu ka gado gorgortan badan kadibna uu ku guulaystay. xoolo iyo hanti aan yarayn ayuu ka bixiyey 7 halaad oo qaar lamaan yahay qaar kale uu reen yahay qaalin kale sange dhaaneel la odhan jiray iyo gaashaan markaa qaali ahaayo saanta dhabarka ee wiilasha laga sameeyey. maalintaas buu afcad xamar cilaan gacanta ku dhigay. daraastii dambe ayuu u faarumaystay sodcaalkii dheeraa ee ximan iyo degaankiisii uu ugu noqon lahaa. waa aroor hore qoraxdii oo aan weli bari ka soo dhammaan ayuu kaaheedii dhulka wada simay. afcadna waa kaa golihii uu baryahan seexanayey inta ka jafjaftay faraska heensihii u dhameeyey. waa kaa caynaankiisii hantiyey ee gacanta bidixe ku haysta. waa kaas walaalkiis cali darbar uu garabkiisa taagan yahay oo inuu la ballamo iyo inuu sagootiyaba ugu soo kalahay. markuu neefkii dusha uga baxay maagan yahayna inuu nadiga ku jiido ayuu cali ku yidhi faaraxow xamar cilaan horaan aqoon ugu lahaaye haddii dushiisa wax lagugu yeelo anigaa u eedoon, haddii dhulka wax lagugu yeelase adigaa u eedoon. waxay ahaayeen erayo kooban oo muujinaya kalsoonidii ay faraska ku qabeen. dabadeed kiiyoo uu ku faraxsan yahay ayuu ximan la yimid. markaas baa baxaaligiisa quruxdiisa iyo xooggiisaba lala wada asqaraaray. fardoolaydii ay dagaan wadaagta iyo xigtadaba ahaayeen kolkii ay weydiiyeen siduu ku helayna tixgeeraara ayuu ugu jawaabay, isaga oo ugu sheegaya hantidii badnayd ee kii lahaa looga soo gatay iyo nin laga dhacay oo kale siduu ugu ekaa. wuxuu yidhi 2 haatan dhashiyo 2 haatan dhalaysiyo mid kaleoo ka dhex tuuriyo gaashaan dheeg wiyileed iyo dhaameel baa laga dhiibay kii lahaana dhul xariiq iyo dhacsiinu ka ahaa. muddo dheer wuxuu afcad xamar cilaan ku joogaba, wuxuu duulaan iyo daba kale ku qunsadaba. waagii dambe ayuu ka baxay. isaguna markuu gaboobay ee gogashii geerida uu saaraa waxyaabihii uu ka samri la'aa ayuu faraskaasi ka mid ahaa. wuxuuna ku xusay
tuduc ka mida gabayadiisa kuwii ugu dambeeyey midkood waa tuducii uu ku odhan jiray waataan jeclaan jiray fardaha inaan ku joogaaye jilbadaabadkii xamar cilaan allah u naxariistee halgamaagii weynaa sayid maxamed cabdilla xasan markay ku dhalatay gumaystayaasha ingiriiska talyaaniga iyo xabashida in dalkiisa uu ka xoreeyo wuxuu ku tashaday bal marka hore in gacantiisa uu ku hubsado 3 kale ah rag farda iyo hub waxay la ahayd in 3daasi ay lama horaan u yihiin nin walba oo tabtiisa oo kale dagaal dheeraan doona u tafaxayta inuu ku hagaagsanaana gadaal bay ka caddaatay oo waayaha ayaa u furay sidaa daraaddeed fardaha xarumihii daraawiisheed lagu hayey aad bay u fara badnaayeen lamana sheegin tiradooda dhabta ah cid tiqiin 70-nadii qarnigii aynu soo dhaafnay ayaan isku dayey xog runta u dhow kuna saabsan tiradii fardahaas inaan ka helo daraawiishtii aan nolosha ku soo gaaray hase ahaatee ku waliba intuu gacmaha ka taagay ayuu yidhi yaa sheegi kara yaa islaamahoo tiro ku dhammayn karay maalin kalena bilowgii 1970-nadii ayaan xamar kula kulmay gabyaa reer gadood ahaa oo guuleed Jucfe la odhan jiray markaasna bastiis la ahaa guuleed inkastuusan daraawiish tegin haddana wuu soo gaaray wuuna ku garaadsaday waxaan weydiiyey fardihii Soomaaliyeed ee tirada badnaa halkii ay ku dambeeyeen markaas buu ku jawaabay fardahaad i weydiinaysaa nugaal iyo gacan daraawiisheed ayay ku idlaadeen kamana soo noqon awjaama cumar ciise oo allaha u naxariistee taariikhda ururka gobonnimo doonka ah aqoon gaara u lahaa ayaan isagana jeer isla soo qaadnay gabayga caanka ah ee haddana caynka ah sayidkuna uu mariyey geelii miinale la baxay kolkuu reer bari ka dhacay ee ciidamadiisa oo kala maqan gaadmada lagaga qaaday waa gabayga fardaha kumaankunka ah kalena midabka ah uu ku sheegayo fardihii uu soo kicin lahaa halkii geela laga kaxaystay hadduu joogi lahaa waa gabayga ay Soomaalidu la yaabto ee wadaadku uu ku muujiyey aqoontii uu u lahaa af Soomaaliga fardaha iyo midabadooda waa gabayga raggii geela saanyaday uu ugu dardaar warinayo ee inay eedi doonaan uu ugu sheegay gabaygii dheeraa ee tuducyadiisa ay ka midka ahaayeen kun caynaba kun coofaar bullaa kuman cudbaawiira kun caddaana kuman caarle iyo kuman baroor ciida kuman calasa kuman bood carfi leh kuman cillaanmiida kuman yaal cirfiid iyo askira kuman cawaasiira kuman xamar cas iyo miidahoo wada cawiifaaya kun calowah kuman yaal calcala kuman dhalaal cawra kun carwaajis iyo boodh leh oo midab casuuraaya kun calow ah kumayaal curboon kuman ciriifaaya kuman calasa kuman cawmisila kuman caruusaada kun cigaalan caynaan yaqaan kuman cidood meera kumayaal cishaha fii durduro haadda la ciyaara kumayaal cirbiidintaa ka dhiga ceelashiyo gaarka wuxuu sidaas u wado iyo kuman horle wuxuu kolba ku soo daraba waa gabaygii qaybaha ugu dambeeya uu ku odhan jiray intaasoo kun wada cayna yaan soo cirbin lahaaye ceeryaamo anigoo wata oo ciiro iyo qiiqi leh casar baan u soo dhigan lahaa cagadaruureeye coomaadahan siin lahaa coodi iyo jiire waxaan ciiska weyn dari lahaa caadaqaataha cawgiirta waan noqon lahaa cooflihii bariye geelii carrada buuxiyey ee calaggu saaniyooday caqli nimaan lahayn baa is yidhi waa cantoobsadaye cidlaa laga kaxaystaye
ma waa cudud la ii sheegtay. daraasta aan gabaygaa ka sheekaysanaynay ayaan awjaamac weydiiyey hadday run tahayoo farda sidaas u badan ay daraawishi lahayd. markaas buu yidhi way lahaayeen, beenna kuma uu sheegin. si uu taas iigu rumeeyana wuxuu ii wariyey sheeko Hargeysa ku dhex martay isaga iyo cali darmaan oo muddo dheer ahaan jiray muqadinka fardaha daraawisheed. wuxuu awjaamac darwiishkaa haybiyey tirada fardahoodii intay ahayd. markaas buu ku yidhi ma waxaad i haybinaysaa kuwii sayidku gaarka u lahaa mase kuwii xarunta joogay oo idil oo daraawiisha wada lahayd? waxaan u jeedaa kuwii xarunta joogay oo idil, awjaamac baa yidhi. kolkaasuu cali darmaanna ugu jawaabay kuwaas ilaah oo keliya ayuunbaa sheegi kara. su-aasha haddaba meeshaan ku habboonay waxay tahay haddii tirada fardihii daraawiisheed ay sidaas u badnayd, rag allow tayadooduna sidee bay ahayd? barnaamijyadii kan ka horreeyey qaarkood sidaan ku soo xusay weligeed muran lagama keenin dhoodida nugaaleed inay ahayd dhulka soomaalida meesha ugu fardaha wanaagsan, taasoo ah halka wakhtigii ay jirtay intiisii badnayd ay daraawiishi ku sugnayd kuna bulaashay. waxay ahayd meel farda lagu dhaqo meesha ugu wacan, maxaa yeelay dhagaxna ma laha. waayadan ka horna biyaha iyo cawskuba falti bay ku ahaayeen. waxaa isaguna nugaal soo raaca geyiga ximanood oo ka tirsan degaamada dhexe ee dalka. xilliyadaas aan hadal haynana fardo tilmaamani ay marba ka soo bixi jireen. dulucdu waxay tahay labadaas meelood fardihii ka dhalan jiray lama sheegin fardo kale oo orod ku hawaysan karay. waa siday odayadii hore noogu dhegaystayaal, maalintii uu daraawiish midabada u taagay ilaa la soo gaaray Janaayo 1920 oo ah bishii la jabiyey, wuxuu sayid maxamed ku tallami jiray si uu yeelaba in xarumaha dariiqada uu ka soo buuxiyo faraskii uu ka wacan yahay ama geeyaba geeyadii ay ka caga badan tahay. taasna eebba waa ku guuleeyey. daraawiishina waxay qabtay hanashada neefka baxdowga ah iyo guud ahaan ururinta fardaha in cawo iyo ayaan gooni ah uu u lahaa. inkastoo lagu andacoon karo in jeerkaas uu taleex magaanba ku yaraa, waxay haddana daraawiishi sheegtay farda 6 ah oo si gaara uu sayidku uga warqabo loona dhaqaalayn jiray. waxay kala ahaayeen walhad, doodimeer, calanside, fookheeye, laalays iyo xiin finiin oo isaga si faahfaahsan barnaamijyada kan xiga aan ugu soo qaadi doono. sida la wariyey fardahaas 6da ahayd sayidka ayay u gaar ahaayeenoo ku magacawnaayeen, inkastoo markii loo baahdo iyo maalin baasta ay rag kale ku dagaalgeli jireen. 6dooda mid walba waxaa loo hayaa gabay ama geeraar uu sayidku ku ammaanay, taasoo ku tusaysa in hub la isku hadlayn karo ay u ahaayeen. waxaa haddaba jiray rag dhowra oo gooni ahaan loogu jaadi jiray fardaha daryeelkooda, kuwaasoo aan hawl kale lagu qaybsan jirin aan ahayn mididooda, suragsiintooda, waraabintooda iyo usubkidooda. si kastaba ha ahaatee marnaba yaan shaki kaa gelin in farduhu ay daraawiish lafdhabar u ahaayeen. taasna waxaa kuusii iftiimin karaysa kol dhow sheekada aan marin doono kuna saabsan laalays oo sidaan soo sheegay 6daa faras ee qolkujirada ahaa ka mid ahaa. bartamihii 1973 dabaqabashada taariikhda iyo suugaantii daraawiisheed jeer aan ku howlanayn ayaan dhallaamo cunay halka lagu magacaabo oo buuhoodla u dhow. waxaan kula kulmay maxamuud xoosh dheere nin la odhan jiray, kana mid ahaa raggii xarunta daraawiisheed
magaca iyo maamuuskaba ku lahaa. arrimo dhowra oo aan maalintaa wax ka weydiinay ayay farduhu ka mid ahaayeen. markaas buu inta dhab u furfurmay sheekooyinkoodii ku dheeraaday. ugu dambaystiina wuxuu u soo dhacay laalays iyo raggii hayn jiray siduu sayidku u jeclaa iyo markuu ka baxay gabaygii uu mariyey. maxamuud baa ku bilaabay, farasku wuxuu ahaa mid caan baxay, mid aan fardaha la ekayn una ekayn, gooni ka ah kumankii taleex iyo guud ahaanba nugaal ka buuxi jiray. dharaartii dambe ayuu sayidku u yeeray 4 ninoo hadda aan 3 ka xusuusnahay: cabdigoohe, muuse faarax iyo ismaaciil cagadhiig, kuwaasoo uu faray in dhaqaalaynta laalays ay u jeebanaadaan, ayna ka dhigaan qolku jire wixii anfaaci ah ay waabkiisa ugu geeyaan. nimankaasi hawl kale oo aan taa ahayn ma lahayn, iyada ayayna intii muddo ah go'doon u ahaayeen. waxay ku jilaayeen guryaha reer sayid, hadbana wax dheeraada ayaa la siin jiray si ay xoogooda isugu geeyaan laalays daryeelidiisa. maxamuud xoos ayaa intaa wuxuu noo raaciyey, muddo hadday arrintu caynkaa ahayd ayay 4tii nin tashadeen. waxay is yidhaahdeen, warin badan baanu neefka haynay, hala inaga bedelo. kolkaas bay goor waaberica sayidkii u galeen, kuna yidhaahdeen, sayidii, faraska naga qabo, rag kalena ha loo dhiibo. dabadeedna wuxuu yidhi, bal kaca oo biyaha geeya ha soo cabbee. markay ceelkii geeyeen oo ay waraabiyeen ayuu darkii dul habsaday. dhan buu u leexday, waa jiifsaday, waa la soo rogay, mase naftiiba kala tage. afartii nin oo jarihii gacmaha ku sita ayaa sayidkii ula yimid. saakana waa kuwii u ashtakoodayo sayidii faraska naga qaba ku yidhi. geeridii faraska iyo eersheegadkoodii ayaa isku kor noqday. markaas baa wadaadkii tuhun galay. wuxuu u maleeyey inkasta uusan hubin in kas iyo maag ay nimanku faraska u dileen. taasna iyaga kumuu odhanne wuxuu ku sheegay gabaygii baroorta ahaa ee maalmo kadib uu tiriyey. gabaygii qaybihiisa hore uu ku muujiyey geerida laalays sida weyn ee uu uga murugooday, siduu uga gaabsaday in dadka uu la sinjaaro ama uu dheeho, iyo siduu jiif iyo hoyaad raaxa leh uga abaaday. waa caadadiisiiye isaga oo xuseen dhaqle ku halqabsanaya ayuu yidhi, xuseenow war laabuda, haddaad aniga laameeli waxaa igu lilaahiya inaan laayacaad ahaye laalays siduu iga lumay luudis baan ahaye. kobun baan ku laabnahay sidii liita doora lahee laafyaha waxaan saydi jiray, laabta gacantii iyo luuqyada kolkaan mari habluhu igama leexdaan. larkacaan dilayaa sidii layli cararaaye lawaaxiga dharaareed, cidlaan laysanahayaaye lubigayga keliyaa fadhiya lebi dabayl weyne. qorax liiqday goortay shamsadu libiqsatoo ciirto, waxaan soo luqaadaa markay laxuhu ciiraane, laankaan fadhiistaa sidii layf martaaniya. ugu dambaysta 4tii darwiish ee u malaynayay in iyagu ay laalays caa'een ayuu haaraamayaa, habaarna dusha kaga tuuraya. wuxuu ku tilmaamayaa inay yihiin maliibaanayaal gumaystayaasha kala saftay, markaasna lib aanay mudnayn faraha ka saaray. wuxuu yidhi, waxay laabtu ii ruxan duqii luqunta weynaaye, isagaa kolkuu lumay qalbigu ii lalabayaaye, waxa labalagdaha iigu wacan laaqanantabi. libaas kacaya loolimo dagaal leebi dirirteeda, rogaalkan ku laablaabayey yay iga lugeeyeene maliibaanayaalow kufray lib u walwaaleen. lugooyooyinkan qabo rabbaan laxawga moogeyne laqwina maayo, maantay ciradu laaca ii tahaye waxaan laabta ku hayaa inay laqamaheereen. ilaahow ku naxariiso, ma moodaa wiil ama waalid
ama walaal uu jeclaa oo geeriye ka qaaday inuu maantana waa gogoldhig aan kaga hadlaayo sheekadii xiin finiin. dhegaystayaal, madahayga fardihii daraawiisheed iyo guud ahaan fardihii soomaaliyeed ee qarnigii 19aad iyo kii 20aadba sida weyn afka loogu hayn jiray waxaa ugu caansan sangihii xiin la baxay. waa inta badan sangaha loogu abtiriyo geeyadii dhashay ee iyadana finiin uu magaceedu ahaa, waana sangaha keliya ee ilaa maanta aynu magaca hooyadii naqaan. waa sangihii la shirabay ee maalmaha dagaalada uun dibadaha lagu arki jiray, xilliyada nabadase qolku jiraha ahaa. toddobaadkii aynu soo dhaafnay barnaamijkii baxay sidaad ku maqasheenna waa sangihii aan ku tiriyey fardihii uu sayidku gaar ahaanta u lahaa. dad badan ayaa suurowda in caanbaxa xiin ay u saariyaan cagabadnaan iyo baxdownimo uu fardihii kale kaga fooray. ha yeeshee taasi waa wax muran ka furmi karo, maxaa yeelay waxay daraawiishi lahayd kumaakum isaga aan waxba u ogeyn, sida walhad, calanside, fooqeeye iyo qaar kale oo la too ah. maxaa kolka isaga caanka ka dhigay? maxaa muddada dheer afka loogu wada hayn jiray? maxaa ka soo dhex saaray dooxooyinka nugaaleed kubankii dhalaarta muggay tahay lagu foofin jiray, habeenkiina lagu mili jiray? intaan haddaba weydiimahaas jawaabahooda dib u dhigto aan idhaahdo, fardihii daraawiisheed waxaa ku jiray dil ka gooni ah uuna wada dhalay faras isxal la odhan jirayoo dhashiisu ay inta kale ka tilmaanayd. waxaa loo yiqiin dhashii isxal mar bayna tiradoodu kor u dhaaftay 500 oo sangooti iyo geenyooyin isugu jira. daraawiish badane siday qabtayna isxal qudhiisu xarumihii daraawiishid kuma uu dhalane waxaa la arkay isaga oo dhex taagan. markaas bay odhan jireen jinni daraawiishta u hiilinaya ayaa ku soo dhex tuuray. haddaan doonno inaan wax kasii ogaano dilkii isxal, fardihii kale ee daraawiisheed siday uga meeqaan sarreeyeen loogana jeclaa, waxaa ila quman inaan halkan ku soo qaado sheeke aan wanaag ku dhammaan oo dhex martay sayidka iyo darwiish la odhan jiray maxamuud xasan maxamuud gaanina lagu naanaysi jiray. waxay ahayd maxamuud gaani iyo ciidan daraawiisha uu ammaanduule u ahaa ayaa loo diray inay weerar ku ballaariyaan degmooyin reer ximanood ah oo ururka ay col ahaayeen, dabadeedna ay geerasha ka soo qaadaan. markaas bay inta hawraasan yidhaahdeen oo wareegadii adkaysteen waddada cagta la heleen. hawshii loo diray kolkii ay soo guteen, kolkay degmadii galeen oo intay geel badan ka soo moora duugeen ay xeryaha u soo madoobeeyeen, ayaa raggii maali jiray oo fardo dheereeya ku joogaa intay is-abaabuleen ka daba yimaadeen, haddiibana ka soo dhacsadeen. maalmo dhowra kadibna maxamuud gaani iyo ciidankiisii ayaa talax soo galay iyaga oo faramaran. sababta markii la weydiiyena wuxuu ku jawaabay, sayidii, fardaha ximanood kuwa nugaaleed kama liitaan. taasina waxay sayidkii ku noqotay wax aan la qaadan karin. wuxuu liqi kari waayey fardo dhashii isxal ah rag ku jooga sida xoolo ay wataan looga dhacsan karo. sawtuu markaa ka hor daraawiishta u sheegay dhasha isxal waxa ay tahay ee fardaha kale ay kaga duwan tahay. faraskiisii calansidee mar uu geeraar ku ammaanay sawkii tuduc ka mida ku odhan jiray, xiita meelay ka fooftay haddii weerar la xuubsho waa xuf oo lama gaaree ma dhashii isxal baa. shaki kuma jiro jawaabtii maxamuud in sayidku dhibsaday dhabna uga umlay. shaki kuma jiro inuu u qaatay dacaayad xun oo haddii la maqlo daraawiish niyadjab ku abuuri karta, dadkii colka la ahaana ay ku diirsan karaan. kolkaas buu cabbaar kadib ugu foorarey intuu madaxa kor u soo qaaday waxaa rabbi afkiisa ka keenay, maxamuudow, allow maxaan arkay adoo gaala u hiilinaya. sow sheekadu markay dhacaysay labadooda oo keliya ma ay ahayn,
waayeel khusuusida ka mid ah ayaa goobjoog u ahaa. iyagii baa sheegay wixii labada nini ay is yidhaahdeen daraawiishtana ku dhex faafiyey. dabadeed muddo yar kadib ayuu allaha u naxariistee maxamuud ku baxay gacanta darwiish kale oo isaga qudhiisu uu adeer rumaad u ahaa, kaasoo ku fuliyey xukun dil ah oo aanu cidna kala tarsan, sidaa darteedna aan isaga mooye cid kale wax laga saari karin. sheekada xiinfiniin waan ka yaro durkaye intaan ku soo noqdo aan idhaahdo, inkastoo uu dheereeyey haddana farasku dhashii isxal isagu kuma jirin, waana halka uu muranku ka oogmi karaa, lana isweydiin karaa intaas oo dhashii isxal ah sidee buu xiin uga wanaagsanaaday ugana magac dheeraaday. wixii fardihii kale xiin ka saraysiiyey 3 sababood ayaynu ku soo koobi karaynaa. sababta koowaadi waa weydiisadkii islaam faarax islaan aadan ee markay xidhiideen uu sayidka ka cubtamay. tan labaadi waa gabaygii uu wadaadku mariyey markii uu bixinayey. tan saddexaadna waa baxduwnimadiisii. sababahaa saddexda ah oo malahayga tan ugu horeysa ay ugu xoog badan tahay ayaa faraska dadka wada baray, inkastoo labada dambana ay qayb weyn caannimadiisa ku lahaayeen. isweydiin kale oo halkan ka dhalan karta ayaa waxay tahay, gabayga xiin miyuu ka heer sarreeyaa geeraarada iyo gabayada uu sayidku fardihii kale u tirin jiray? aragtidayda jawaabtu waa maya. maxaa yeelay haddaan akhriyey maansadiisii ammaanta fardaha, waxaa igu weyn inuusan jirin geeraar ammaan fardood ah oo la barbar dhigi karo kii uu walhad ku ammaanay xagga af soomaaliga iyo dhinaca xoogga macnaha ku jira labadaba. sidaas kolkaad ila ogolaato, waxaad haddana ila ogolaanaysaa in weydiisadkii islaam faarax uu faraskaa ka yeelay mid tilmaaman oo gabaygii laga mariyey lagu halqabsado. tan iyo maanta soomaalida qaarkeed markay wax ku dheer hurayaan waxay daba dhigaan 2 meelis oo halkudhagyada gabaygaas ka mid ah. aduu galabta kuu xoola yahay, xamarka deeraayo xarigiisa qabo, aadni kale kuma xurmeeyeen. su-aal kale oo waxaa jirta in halkaan la iska weydiiyo ku habboon waxay tahay, geeraarka warhad loo mariyey hadduu gabayga xiin ka ab soomaali iyo macno sarreeyo, muxuu caan u noqon waaye oo sida gabayga xiin uu dadku ugu wada hadaaqi waaye? jawaabtu ma adka, waxayna tahay geeraarka warhad loo mariyey waa ammaan faras iyo tilmaantiis. kanse gabaygiisa waxaa ku saynsaaban arrimo siyaasadeed oo kala jaad ah. waxaa ka mid a sayidka oo doonayay in islaam faarax iyo dadka uu u guddoomiyaa ay daraawiish usoo jabaan, sidaasna ay garab uga helaan. taasna qofkii taariikhda ururka wax ka yaqaani gabayga wuu ka dhadhamin karaa. waxaa kaloo si caddaana gabaygaas looga garan karaa in bixinta faraska uu sayidku uga dan lahaa magaciisa iyo maqaladiisaba inuu ku ilaashado, wixii indho iyo dhagale inuu u muujiyo deeqsigii uu ahaa iyo awooddii uu u lahaa inuu ka maarmo wax kasta oo qaali ku ah sida xiin. sababtaas ayaa gabayga xiin ka sarraysiisay gabayada kale ee fardaha, ee ma aha inuu ka wada fiicnaa. dhegeystayaal, barnaamijyadii kan ka horeeyay qaarkood sidaan ku soo sheegay, xiinfiniin dhashii isxal ee lala afjabay kuma uu jirin, daraawiishna uma uu dhalan. hase ahaatee dhexdeeda ayuu ku caanbaxay. muddana wuxuu ka mid ahaa fardihii sayidka gaar ahaanta ugu magacownaa. waxay kolka su-aashu tahay, haddii aanu u dhalan waa sidee siduu hanti daraawiisheed ku noqday? si aynu haddaba su-aashaas uga jawaabno, waxaynan ka maarmayn inaan dib ugu noqono taariikhdii hore ee faraska iyo gacmihii uu soo maray ka hor intii aanu taleex soo gaarin. taasna waxaan la kaashaday nin allaha u naxariistay arrimahaas xogogaal u ahaa oo aadan warsamo islaan la odhan jiray. wuxuu aadan yidhi, faraskaas hooyadiis oo geenye ah iyo fardo ay ku jirto waxaa lahaa ciise dhuunkaal xasan cadde oo reer nugaaleed ahaa. ciise ayaa dabadeed wuxuu guursaday gololo cigaal oo ah gabar ay walaala ahaayeen
nin askar cigaal fiqi lagu magacaabi jiray oo isna reer mudug ahaa. kolkaas buu finiin iyo fardo kale wuxuu ciise yareed u siiyey askar cigaal. genyadii markii la jareeyey ayaa durbo wanaaggeedii iyo orodkeedii loo bogay. dabadeedna maalin maalmaha ka mid ah ayaa duulaan loo baxay. ciidankii oo maraya meel dhagax leh ayay genyadii qoobkeedii dhagax ku qaadatay. kolkaas buu dib ugu finiinay faras ka dambeeyey oo intuu ku dhacay ninkii ku joogay dhulka ku riday. horta maalintaas bay genyadaasi finiin la baxday. aadan warsamo islaan oo sheekada sii wada ayaa yidhi finiin markay curatay waxay dhashay faras isna dhagajeex loo bixiyey. dabadeed askar cigaal oo waagiisii hore hodanqabeen ahaa ayaa xoolihii ka xumaadeen. markaas buu finiin iyo dhagajeexba iska iibshay. islaan aadan oo ka mid ahaa madaxdii gobolka mudug ugu magaca weynay ayaa finiin ka iibsaday. 10 geela ayuu ka siistay. dhagajeexna warsamo islaan ayaa ka gatay. 3 sac ayuuna ka siistay. kolkaas buu siiyey nin uu dhalay oo xasan warsamo islaan la odhan jiray. kaas ayaana waayadii dambe fuuli jiray. geeyadii finiin waxay xedhada islaan aadan ku dhashay faras dhuublabaale loo bixiyey oo ah isla midka xiin isu rogi doona. dhuublabaale yaraantiisiiba wuxuu noqday faras caan ah, fardihii tolku haystay oo dhanna ka dheereeya. xooggiisa iyo orodkiisa markii la arkay ayaa loo wada bogay. waxaana fuuli jiray islaamku ninuu dhalay oo xasan islaan la odhan jiray. farduhuna dhammaantood midabkoodu xamar buu ahaa. finiin oo hooyadood ahaydna waxay ku baxday degaanka gorol iyo hobyo u dhaxeeya oo waagaas ay reeruhu degi jireen. dhagajeex wuxuu ahaa faras madax adag oo xoog badan oo ninkii fuulaba la taga. dhuublabaalese wuxuu ahaa wax orod badan oo aan haadu gaari karin. maalintii dambe iyada oo daraawiish laga baqaayo ayaa lagu arrinsaday in korjooga la diro. warsamo xasan baadi oo warsamo darabla lagu naanaysi jiray oo dhuublabaale ku jooga iyo jaamac kooshin oo isna ooga taraar fuushan ayaa la diray. xoolaha madaxoodii markay dhaafeen ayay fardihii inta ka degeen taxaabteen. in yar dabadeedna waxaa raadkoodii ku soo dhacay daraawiish uu wato nin xisibile xuseen xasan la odhan jiray. raadkii ayay hore u qaadeen. markaas bay durbadiiba gaadheen 2 nin oo fardihii taxaabanaya. meesha ay ku kulmeen waxay ahayd agagaarka ceelasha bohol iyo carfuuda oo gaalkacyo u dhow xagga badina uga toosan. warsamo darable ayaa markiiba isagu faraskiisii fuulay oo carar is yidhi. jaamac kooshinse waa la qabtay. warsame oo dhuublabaale ku jooga markii dabin la eryaayey lana gaari waayey ayaa rasaas lagu ridaayey ku dhacday. neefkiina ka tuurtay. halkiibaa isagii iyo dhuublabaalaba inta lagu soo gaaray ay ku gacan galeen. faraskaasina maalintaas ay daraawiisha eliday ayuu isna la baxay magaca xiin oo hadda loo wada yaqaan. jaamac kooshin ayaa markaa daraawiishtii soo kaxeeyey, tusayna meesha fardihii kale iyo cidduba ay ku sugnaayeen. markaas bay daraawiishtii fardihii reeraha oo idil gawaan raaciyeen. sidaas bayna mudug iyo dadkii lahaaba kaga wareegeen. dhuublabaale oo sidaan soo sheegay maantaaxiin la baxay wuxuu sayidku u dhiibay oo dhaqaalayntiisa ku qaybsanaa ismaan boos cali oo madaxda daraawiishta ka mid ahaa. dhagajeexna wuxuu ka dhexeeyey aadan cigaal bayr iyo maxamuud shaacuur oo qoordhabad loo yaqiin. labadaas oo reer mudug iyo reer nugaaleed kala ahaa, xididna ahaa. ha yeeshee waagii dambe maxamuud shaacuur ayaa faraskii loo daayey oo lihi u yeeshay. muddo dabadeed ayaa qaar ka mida reer mudugii daraawiishta ahaa oo maxamuud shaacuur ka mid yahay ay xaruntii ka baxsadeen. waxay u galeen ingiriis oo falkaas uga abaalguday si ay daraawiish u weeqaan una dhabar jabiyaanna dab iyo duunyaba ka simay.
dabadeedna col reer muduga oo ina shaacuur ammaan duule u yahay ayaa daraawiish ku soo duulay. taas markii sayidka loo sheegayna wuxuu yidhi, maxamuud shaacuur keliya uu iigu yimaado wuu leeyahay, ha yeeshee xoog uu dhagajeex ku qabta ma lehee markaad aragtaan sangaha ka toogta. waxaa la sheegay in arrintii ay sidaas u dhacdayoo faraskii taladaa sayidka uu kaga baxay. sidaasi waa xiin finiin siduu hanti daraawisheed ku noqday. sidee bay ku dhacday qayradii markii hore lahayd ee uu ka soo askumay in xeryahoodii uu dib ugu noqdo? waa su-aasha arbacada inagu soo foor leh aan jawaabteeda idiin soo dhegaystayaal, sidaan filaayo taxanahan intiina la socotaa inaad xusuusan tihiin. su-aal baa toddobaadkii hore inoo rahmanayd. waa su-aashii ahayd, xiin finiin siduu hanti daraawiisheed ku noqday ogaanaye sidee bay ku dhacday in qayradii markii hore lahayd ee uu ka soo askumay uu xeryahooda dib ugu noqdo? intii u dhaxaysay 1896 ilaa 1920 oo ah muddadii gobonnimada dalka iyo dadka uu u halgamayey, mar walba wuxuu sayid maxamed aada isugu hawli jiray tabtii ay cid waliba daraawiish ugu soo biiri lahayd, sidii tolalka soomaalida ee kala degaanka ah uu garab uga heli lahaa, ugu dambaystana uu ururkiisu ku noqon lahaa midka ugu xoogga iyo awoodda badan ee geeska afrika ka jira. ujeeddadaas iyada ah si ay ugu meel marto wuxuu sayidku adeegsan jiray taba dhowr ah oo uu dadka ku soo jiito, waxaana ka mid ah waxsiinta iyo aftahamada, gaar ahaan gabayga oo soomaali fara badan uu maankooda iyo maskaxdooda ku taabay. tabta kale ee iyaduna daraawiish waxtarka weyn u lahaydi waxay ahayd guurka siyaasadeed, guurka lagula xidhiidho madaxda qoysaska xoogga leh ee talada tolalku ay ka go'do. si haddaba ay himiladaasi ugu fusho wuxuu sayidku guursaday bullo cali shire oo ay walaalo ahaayeen garaad maxamuud cali shire oo ahaa ninkii muddada dheer geyiga sanaag ka talin jiray. wuxuu guursaday xaadsan dhoore oo uu dhalay dhoore xasan, kana mid ahaa raggii mudug jeer ugu awoodda badnaa. xaadsan waxay haddana walaalo ahaayeen abshir dhoore, darwiishkii la oran jiray ee seefta sayidka dadka qaar ay ku magacaabi jireen. wuxuu kaloo sayidku guursaday barni maxamuud sugulle oo ka dhalatay fac ka fac qoyskii dooxada nugaaleed iyo daafaheeda ka arrimin jiray. xiin finiin iyo sheekadiisii aan ku noqonay, beri dambe ayaa sayidku wuxuu doonay gabar la oran jiray faadumo islaan aadan oo sida magaceeda ka muuqata uu dhalay islaamkii gobolka mudug ka talin jiray. aabbaheed jeerkaa ma noolayne wuxuu ka doonay walaalkeed islaam faarax oo dhowaan la caleema saaray. islaamkuna uma diidine gabadhii wuu siiyey. markaas buu isna ka bixiyey yarad fara badan oo geel iyo fardabo isugu jiray. xoolahaasoo uu islaamka ugu sii dhiibay nin ka mid ahaa khusuusidii daraawiisheed raggii loogu kalsoonida badnaa oo xaaji suudi shabeele lagu magacaabi jiray. xaaji suudi kolkii yaradkii geeyey lagana guddoomay ayaa sida la yidhi islaamkii shaki galay. wuxuu is yidhi, warsoo waxani waa shirqoole, sayidka iyo daraawiish sidaani daacad kama aha. arrintaas uu ku hamiyey ayuu xaaji suudi kula sheekaystay, wuxuuna ka xog ogaalsaday yaradka uu keenay ee faraha badan ka sokow wax kale oo uu daraawiish ku aamini karo. suudi baa markaa ku yidhi, waxaad weydiisataa xoolihii uu ku soo dhiibay inuu xiin finiin ku soo daro. hadduu sidaas yeelo kaama sii jeedo oo wuu kuu qalbisan yahay, ku kalsoonow.
taladii xaajiga islaamku waa u bogay maxaa yeelay xiin hore u yiqiin in sayidka uu meel weyn kaga yaalna si fiican buu uga warhayay su-aaminkiiba weydiisadkaas waraaq xambaarsan ayuu ku joogjoogsaday wuxuuna usii dhiibay faarax dhabansange nin la odhan jiray oo dadku u taliyo ka mid ahaa markuu warqaddii akhristay oo mar labaad akhristay si aada ayuu sayidku uga xumaaday waxaa qalbigiisa gashay muu islaamku wax kale ku weydiisto bal muu geel lo iyo xoolo kale kaa duraanto oo xiin finiin kuu daayo muu fardo kale kaa codsado oo faraska kugu xushmeeyo wuu tallamay oo isla tashaday ma bixisaa ma ku fara adeegtaa gabadhaba ma ka noqotaa oo neefka dartiis ma uga maarantaa wuxuu talada rogrogo iyo marba mid hor lihi waxay istustaba ugu dambaystii isaga oo arrimo dhowra xeerinaya ayaa waxaa ka go'day wax kastaba ha ku waaye inuu neefka dhiibo yaradkii horena uu ka dabageeyo sidii faras fardaha la mid ah sayidku xiin finiin uma uu bixine wuxuu daba dhigay gabayga ay soomaalidu badiba u taqaan ee indhaha maansada soomaalida ka midka ah magac ahaanna xarigiisa qabo lagu garan og yahay gabaygaas korkuu tiriyey ayuu goor galab ah wuxuu u yeeray faarax dhabansange oo ah ninkii uu islaamku soo dirsaday wuxuu ku yidhi gabayga fariinta ah ee aan mariyey xuseen dhiqlahna ku qaybsiin doono intii 7 maalmooda kor ka baro maalinta 8aadna adiga iyo nin aan kugu dari doonaa xiin finiin baydu kaxayn doontaan oo gacanta islaamka aada ku hubsan doontaan sidaas ayuu sayid maxamed xiin finiin ku huray sidaas ayuuna ugu noqday gacmaha reer islaan iyo markiisii horeba geyigii uu ka soo jeeday halkan ayaa haddaba waxaa ku jirta in la xusana mudan sheeko xiisa leh oo muujinaysa daraawiish iyo wixii sheegta siduu sayidku u muunayn jiray isla markaasna u liidi jiray noloshii ka jirtay dagaamadii soomaaliyeed ee gumaysiga ogolaa amaba ay daawada lahaayeen daraawiishna ay colaadu ka dhexaysay waxaa la yidhi faarax dhabansange kolkuu taleex yimid wuxuu ku joogay faras heensaha saarane ay aada u foor xumaayeen markaas buu sayidku weydiiyey war islaamka iyo walaalihii makan oo kale ayay fardaha ku fuulaan kolkaas buu yidhi haa sayidii dabadeedna gaaciya mataan oo samaynta heensaha fardaha iyo qarabkooda daraawiishta ugu qaybsanaa ayuu markiiba u yeeray wuxuu ku yidhi waxaad ii samaysaa 3 wagarad 3 maqaane 3 sitaac iyo 3 jeedal oo islaamka iyo walaalihii aan u diro waxaanad ku dhammaysaa 7 maalmood oo maanta laga bilaabo sida qof waliba garan karo wuxuu sayidku tallaabadaa uga jeeday dicaayad dadban iyo inuu dadka tusiyo in daraawiishi ay soomaalida kale ka nolol sarrayso dabadeedna cid waliba intay xarunta soo haybsato ay istiraahdo alla ilahe taleex gaaroo gacmo buuxa waa xiin finiin iyo gabaygii lagu ammaanay dhagaystayaal waxay inoo joogtay sayid maxamed oo ay ka go'day in xiin finiin uu huro inuu usii dhiibo islaam faarax oo markuu la xidhiiday ka soo codsaday sidaasna uu ugu guulaysto isbahaysi inuu rumoobo uu dhab u jeclaa oo reer mudug ay daraawiish ku noqdaan waxay inoo joogtay faraska ka sokow sayidka oo gaaciya mataan ku amray in 7 cisho uu ku ebiyo heense wanaagsan oo islaamka iyo walaalihii intuu u diro ay fardaha ku fuulaan heense ka kooban 3 wagarad 3 maqaane 3 sitaac iyo 3 nadi waxay inoo joogtay sayidka oo tiriyey
gabay ku saabsan ammaanta xiin iyo bixintiisa siduu uga xanuunsaday. waxay inoo joogtay faarax dhabansange oo ah ninkii uu islaamku soo dirsaday oo isagana uu sayidku ku amray inta aanu xarunta ka ambabixin in 7 maalmood gudahood uu gabaygaa kor kaga qaybo si uu uga mariyo isla goobta uu islaamku faraska kaga guddoomi doono. maalintii 8aad ayaa xiin iyo faraskii dhabansange labadiiba heensa cusub lagu shaqlay. dabadeedna daartii falaad afaafkeeda waa Taleexe ayaa lagu qabtay shir weyn oo daraawiish la isugu yeedhay. goobtaas kolkii lasoo buuxiyeyna sayidkii oo faraskii guudka u salaaxaya lana moodo inuu sagootiyayo ayaa yidhi, faarax dhabansangow kollay baratae gabaygii aan kuu dhiibay bal mari. markaas buu mariyey isaga oo macaansanaya meelisna aan ku hakan kuna aan ka tegin. aan haddaba gabaygaa idiin soo gudbiyo aniga oo isku dayi doona qaybo ka mid ah inaan u jilciyo da'yarta laga yaabo in afkuu ku tirsan yahay uu murtidiisa ka daaho. 9 meelis ee uu ku bilaabay ayuu sayidku ku leeyahay, faaraxow waa faarax dhabansange waqaad in badan noolaataaye ragga hadal qeexan baa wax loogu sheegaa, si xusmo lehna waa loogu warramaaye. haddii aan xaasidnimo jirin waxaan ahay nin xishooda oo sariig badan, dadkana jeclaa ka hor intii aan gumaysiga la igala safan dagaalkiisa la igu keliyeynoo aan la iga bixin. adiguna xaashi nin madaxay uu kuu soo dhiibay ayaad ii keentaye waxaad ogaataa isagana aad iiga geysaa in aanan marnaba kaga mas-uugayn wax allaale wixii uu iga rabo ee aniga uu iga soo baahdo. dhabtii tashigaygu wuxuu ahaa islaamka waxaad ku bantookdaa geel wada xul ah, quruxdiisa lala yaabo oo kumaankun ay tiradiisu gaadho. waxaan islahaa u sii dhiib geela la xiriyo oo dhaqaalayn awgeed araaraha la daajiyo. hase ahaatee waxaad qabta lama qarsadee waxay naftaydu dhaawacantay markaad xiinfiniin isdamacsiisay. hayow faaraxow hadal, rag waa loo xutubiyaaye nin xishoodle baan ahay. haddaan la xisti yahayne xabiib baan ahaa jeer kufriga laygu xaasidee. adna xaashi baad iila timid xaakin soo diray, xaddigii adduunyiyo haddaad xoola iga dooni marna anigu kaama xayireen xaalaad leedahay. inaan kuu xafgooyaan jeclaa geel xawaad badane kumayaal xeraadaan lahaa, xawd u sii mariye markaad saxiin finiin damacday baan ka xanuunsaday. wuxuu ku xijinayaa, walaalow wuxuu la hadlayaa waa islaam faaraxe, kasmada iyo garashada qaarkeed waa lagu lugo-aa, bixinta neefkuna waa arrin runtii igu culus. hase ahaatee waxaa wax walba iga suuragelinaya oo aan kuugu dabcayaa waa qaraabada aanu nahay. inkastoo ay dhab tahay oo dad kale hadday faraska isdamacsiin lahaayeen aan dood iyo caro kulul kala hortegi lahaa, haddana qofku kolkuu adiga yahay igama suurowdo, la igamana yaabo. xigta ha ahaato, xigaal ha ahaado, xidid xaraga igu lehna allaha ka dhigee. weligay iguma soo dhicin maalin maalmaha ka mida ayaad xiin qof siin doontaa, farda reero kalena uu ka dhex muuqan doonaa. walaalow xidgiga qaarkii waa lagu xujoobaaye waxaan kuu xutubiyaaba waa xuuradaan ahayee nin kalaan xafiilaba adaan xaydda kaa rogiye. xigto iyo qaraabo iyo hadduu xidid iweydiisto xayi iyo qayuumey haddii la igu xoodaansho xubbigayga kuma hayn inaan xiisow bixiyay. si uu islaamka u dareensiiyo inuu wax weyn u huray
wuxuu sayidku ku dheeraanayaa ammaanta faraska iyo baxdownimadiisa. wuxuu leeyahay allah farda kalamuuda buucane kiisu waa xamarka loogu jecel yahay, dhan loo dayaba wax lamid ah lama uumin, geenyo iyo sange u dhigmi karana meelnaba laguma sheegin. xagga qaabka loo abuuray, orodka xoogga leh, orodka gaaban iyo taxaashaynta, raaxada iyo aayar u socodkaba neef lagu saaweyn karaa ma uuna. allah hanaanka iyo toosnaanta xubnihiisa waa jaad gaarahoo aan la arag lana maqal isaga oo kale. kolkuu igu soo dhacaba intaan muraaqoodo ayaa jacaylkiisu igu kordhaa. markaas baan is idhaahdaa alla ilaahay hadda iyo hadhow toona kama maarmi kartid, wax aad dhaafsan lahayd oo aan diinta eebba ahayna ma jiraan. xamar weeye oo midab fardood kala xariiroone, xawaare iyo kabti, raaxo iyo xawli iyo jeefag xaggii loo eryaba waa gammaan xulashadiisii. xubna toosan low neefku waa xaalad gooni ahe goortaan xusuus ugu noqdo yaxriisa ii qabanne waxaan xarafka diimeed ahayn igaga xeeldheerin. dhegaystayaal, toddobaadkii hore sidaad barnaamijkan ku maqasheen, sayid maxamed markuu go-aansaday islaam faarax oo ay xidideen inuu xiin u diro, wuxuu raaciyey gabay taariikhda suugaanta soomaalida meel sare ka galay, ujeedooyinka maansada in badan oo ka mid ahina ay ku jiraan. haddaan soo koobo qaybihii aan idiin soo gudbiyey ee gabaygaas, wuxuu si aftahanima ku dhan tahay sayidku ugu taxay arrimo dhowra oo neefkaa ku saabsan, kuwaasoo uu uga dan lahaa in ciddii maqashaaba ay ugu garowdo, isla markaasna u aqoonsato inuu yahay deeqsi, xubnaha jidhkiisana allaha ka dhige ay ka suurowdo wax walba oo agtiisa qaali ku ah inuu huro. wuxuu tuducyadaa ku bilaabay isagu qof ahaan inuu istilmaamo, dacayadihii shisheeyuhu ka faafin jiray uu dhinac isaga dalfiyo, soomaalidii xilligaasna uu wada dareensiiye inuu yahay nin xishooda, nin dadka oo dhan jeclaa ka hor intii aan gumaysiga looga hiilin ee aan lagala safan. wuxuu ku xejiyey tuducyo uu ku muujinayo sida neefku ugu dheer yahay iyo bixintiisu siday ugu noqotay tallaabo uu la walbahaaray. ammaan aada u xeel dheer ayuu kolkaa faraska dusha kaga dhoobay, tilmaan kasta oo fardaha kiile lagu jeclaadana gaar buu uga dhigay. waa orod badan iyo qurux aan lagula tartami karin, labadaas oo siday isaga la ahayd uu kaga fooray waganadii kale ee waayadaa la haystay, cid doontaaba ha lahaatee. tilmaamahaas waanu garanay. bixintiisa ka hor ma waxaa jiray waxyaabo uu damacsanaa in sayidku uu faraska ku qabsado? haa, way jireen. wuxuu rabay halgankii uu hogaaminayay inuu hub uga dhigto. taas isaga oo islaamka u sheegayana wuxuu leeyahay, xiin finiin haddii aanan islaanow adiga kuu horin, waxaan ku tashanaa inaan u kaalmaysto dagaalada gumaysiga iyo gumaysi kalkaalka aan dalka kaga hortaagnahay. waxaan islahaa col mahiigaana xabin ka duuli oo xaqii daraawiish ka maqnaa ku soo dhacso, taleex iyo badda inta ka dhexlehna geelasha cadowga ku soo mooro duug. haddii kolka uu farasku sidaas ugu dheeraa, hadduu maaganaa in ujeeddadiisii weynayd uu ku fushado, marka loo eego halgankii uu ku jiray hadduu ahaa hub uu isku halayn karay, intaasiba hadday jirtay maxaa ku qasbaayey in xerada fardihiisa uu ka saaro? isaga oo aada mooddo inuu su-aashaa ka jawaabayo ayuu sababta inoo sheegayaa. wuxuu rabaa nacabkii badnaa ee isaga ka soo horjeeday inaysan goldaroolo ka helin, in aan inaba muudalnimo lagu xaman, sidaasna uu magaciisa ku ilaashado. wuxuu leeyahay, ma jeclayn inuu xiin gacantayda ka baxo
anigoo aan warjeefin nimankii xutayda waddooyinka u fadhiisan jiray ee markay soo maraan layn jiray, dilka daraawiishtana u tartami jiray. hase ahaatee intaasba waxaa iiga daran nimanka dhulka meeraysta ee kolba cidamartiya, dhuhdhuhlayaasha xumasheega badan ee u jeeban magaca ragga waaweyn inay bi'iyaan. kuwaas ayaan ka baqayaa inay afka isaaraanoo haddaan faraska ku xisho ay yidhaahdaan, war ninku qaduucsan ah sidee buu seedigiis faraska ugu diidaa? aniguna maanta aniga oo xaaji ah in la exanto dooni maayo, wax ii qalmana ma aha. xarbadiyo jahaadkaan lahaa xoogsi ugu fuule, isagaan xatooyada lahaa xuurta ugu looge, xiniyaha ku goobaan lahaa gaalka xaylka leh, xayskaa da-ayaan lahaa xalin ka dooyeeye, xaqaygii maqnaabaan lahaa xag ugu raacdeeye, meeshan iyo xeebtaan lahaa xiito ka eryoode. xuseen reebta reer hagar anaan xamashyadii roobin, xinjirtooda dhiigga ah haddaan lagu xalaalaysan, xaaqaa maquuqa iyo haddaan xaaluf laga yeelin. xidaysana ma dhiibeen anaan xaaladay boganne, xaaraami unbaa arlada xulo abiidkiise, wuxunbay xusleeyaan sidii xabashi. aniguna xogtaydaan ka baqi inay xumeeyaane, xaashaa lilaahiye nin goba xamasha wow ceebe, goorteer anoo xaaji ah yaan xinif awoodaynin. wuxuu fariintiisa ku soo gabagabaynayaa, islaam faaraxow, intii la i odhan lahaa sayidkii xin waa ku masbuugay, igahoo galabta laga bilaabana xoolahaga ayuu ka mid noqday, anigana iga soo wareeg. maankase waxaad ku haysaa xiin finiin inuu yahay neefka maanta gacantaada galay ee aada yeelatay. sideedana xooluhu waa wada baxaan, naftana waa kala tagaan, xiinna kama duwana. sidaas awgeed haddiiba suldaan aanu xididnay uu ilaga dhegay, sow inaan siiyaa gar ma aha. alla ileehaa cid kalena ma siiyeen ee waa kaasi caynaankiisa iga hano. xayawaanka oo idin naftay kala xeraadaane, mar haddii suldaan igu xillihi igaga xaydaantay, xadigiisa qabo aadni kale kuma xurmeeyeen. faarax dhabansange waa ninkuu islaamku faraska u soo dirsaday, isaga oo xiin finiin ku jooga, darwiish lagu darayna uu la socdo, ayuu degaankoodii u ambabaxay. faraska waxaa ka daraa oo uu waday gabaygaas fiiqsiga leh ee isku mar ujeedooyinka dhowrka ahi ay ku kulmeen. su-aashiisa waxay tahay, islaamkii iyo dadkii uu u talin jiray gabaygaas iyo faraskaas hadiyadda ah ma ku darwiishoobeen? halgankii uu sayidku wadayse wax ma ugu tareen? waa su-aal meesha ku jirta iyo sheeko kale oo loo baahan yahay in laga jawaabo. halkanise ma aha halkii lagaga jawaabi lahaa. dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta waa naga intaas, wuxuuna ugu dambeeyey taxane 10 barnaamij ka kooban, kuna saabsanaa qaar ka mid ah fardihii Soomaaliyeed ee magaca dheer yeeshay, raggii fuuli jiray, iyo maansooyinkii gabayada iyo geeraarada lahaa ee lagu ammaanay.